munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Ceelifin ee gobolka Sanaag ayaa ahay mid haween muddo 2 sano ka mid ahaa dallada Danwadaag ee ay maamusho hay'adda Taakulo ayna hadda ku midoobayaan dallada Samawada waxaana munaasabadan ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag maamulka degmada Ceelifin mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Ceelifweyn waayeel cuqaal duqayti iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Nafis oo Taakulo kala shaqeynaysa mashruucan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Maxamuud Xandulle oo ku hadlayay afka hay'adda Taakulo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Nafis waayeel waxgarad xubno ka mid ah golaha deegaanka Ceelifweyn haween iyo marti sharaf kale aad u tiro badan mashruucan hay'adda Taakulo waxay bilowday 2021 ururadani waxay soo jireen 2 sano inta waxay ka soo shaqeynayeen Danwadaag ahaan maantana waxa Ilaahay nasiibka noogu beegay inay bilaabaan ama sameeyaan ama aynu xidhno daladii ugu horeysay oo magaceeda la yiraahdo Samawada dalada Samawada waxa ku bahoobay 10 urur hormuud sahan anfac hiddo xaqsoor sidoo kale tabantaabo iyo tawfiiq runtii mashruucan markaanu ka bilaabaynay degmada Ceelifweyn waxaad moodaa si uu soo kakanaa laakiin maanta waa ka noo hirgalay waayo mashruucu wuxuu tilmaamayaa uu hooyooyinka ku dhiirigelinayaa faqriga ka bax oo qaniimnimo adigu noqo waxa weeye haweenku marka horeba way hormuudka bulshada run ahaantii anagu hadaan haweenka nahay dee halkaan ugu jiro bulshada ama qaranka ugu jirno cidna loo sheegi maayo halkan fariin baan ka dirayaa cid kasta oo arrimahan quseeyaan maanta waad aragtaan haweenka iyo dhalinyaradu waa albaabka laga soo galo nabadda marna lagu eedayo inay ku wax khariban yihiin maanta intan hormuud waxay u tahay oo tusaale u tahay dhibaatooyinkii deegaankan ka soo dhacay fariin waxay u gudbinayaan ragga iyaga Ilaahay ha garansiiyay sida ay haweenku isugu tashadeen ee isugu duuban yihiin in ragga iyaguna isugu duubnaado kala u sheegaya maamulka iyaga wanaagsan ee u dhagan nugul bulshadooda kor u qaadidooda inay maxaan dhahay hawshan soo dhaweeyaan sida awalba u hayseen ina soo dhaweysaan ina maxaan dhahay nagala qayb qaadataan ina xilka maanta intaas oo dumar ah 10 ka urur iyo 45 kan 35 kale ku guda jira waa halkii albaabkii laga soo galayay maalinkan maanta jaranjarada kaabaha bulshada intaas waxay doonaysaa inay markii koobaad kormeerka ku sameeyeen Ceelifweyn nimaadno in waxyaalo badan oo wanaaga aanu kala kulannay waxyaalaha tusaalaha waxa kamid ah markaan mashruuca ka bilaabaynay annaga laftigeyga waanu ka baqanaynaa waxaan islahayn talo meesha maxaa inaga iman doona laakiin casharradaan ka badaneen doonayay inaan idin kaneen ila wadaago waxa kamid ah in xataa ururadii sameeyeen 10 iyo 10 labadii reer la isku daray inay wada ganacsadaan inay sariibadii wada fureen inay isbooqdaan yani waa tusaale nooloo inoogu filan soo koobi lahayn barnaamijkan Danwadaag marka Soomaaliland guud ahaan laga hadlayo waxaan hoos yimaadaa waa 45 kun oo dumar ah oo ay kuwana ku jiraan meel kastiyo gobol kasto oo tagno way ka shaqaystaan waxna way qabsadaan markaynu heerkan ka gudubno hadii Ilaahay dalada laftigeeda de heer saddexaad baynu gudbi doonaayo ah midowga marka wixii dalada ku jira Ceelifweyn oo dhan laga sameeyo ayaa markaanu ku midoobi doonaa waa imika Hargeysa tusaale ahaan midow baanu leenahay waxaan soo dhaweynaynaa horta haweenku bulshada qaybta ay ka yihiin dee cidna loo sheegi maayo yana waa og yihiin dadkuna wuu wada og yahay waa bulshada lambar 1 ka la oran karaa horena waa loo soo dhaweeyay markii la furay baa la soo dhaweeyay hadda waanu hambalyeeynaa wixii de anaga waayeelahaan ay nooga baahataa hadda waan fadhinaayeen anaga leenahay guul baanu idin rajaynay waxaan ugu leenahay nabadgelyada waxba ka qabanaysaan dhaqaalana waxba ka qabanaysaan hore uga qabatay nabadgelyada waxba ka qabanaysaan waa ku suntantiin degmada Ceelifweyn hablaha degmada Ceelifweyn waxaan leenahay waa wanka Soomaaliland xafladda tan quruxda badan ee la soo agaasimay ee aad iyo aad loo soo shafray cid kasta oo ka soo qayb qaadatay iyo cid kasta oo soo agaanistay aad iyo aad baan u salaamayaa salaamta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
intaa kadib ilaahay roobka ha inoo shubo mid quri ma odhan roobka ilaahay ha inoo shube innaga roobka taakula inoo aha ilaahay roobka ha inoo shubo ilaahay saxaabadiisii waaweynaa waxa inagu soo siiyo intaa kadib aad baan u salaamayaa qof kasta oo ka soo qayb galay iyo cid kasta oo soo agaasintay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin iyagana tacabka allah u xasiliyo taakulo iyo ciddii ka soo shaqaysay arrinta xirfadda qiimaha badan iyo madaxda iyo waayeelka isugu yimi sharafta lena gaar baan iyana u salaamayaa waxaan leeyahay ururkan aasaaska noloshu maadaama aad ku bahowdeen 200 oo dumara waxaan filayaa 200 oo kalena ciidan waad ku soo darsan doontaan markay 400 waxa reer hawd marka ka hore baaqo ee ka dhexe baaqo ee ka dambe baaqo jaanta isla heshaa waxaad muuqata ceelaf weyn inaynu dhammaanteen isu baaqnay ilaahay inoo siyaadiyo iyadoo kulli hadalku iska kooban yahay maadaama aad ku midoobeen ururka samawade waxaan idin rajaynaynaa kulli kootadii haweenkana waa la furay golayaasha deegaanka iyo baarlamaankana inaad taana ka qayb qaadataan oo sidii uga mid noqon lahaayeen halkan maanta waxaan u joognaa dalada lagu mideeyay dhowr 12 urur ee ka soo baxay hormuud sahan anfac nasiye dhammaantood halkan waan ugu hambalyeeynaa sida wada jirka ah ay uga wada qayb qaadan doonaan degmada Ceelafeen annagana nagala shaqeyn doonaan horumarka degmada haddaan la wada shaqeynaa horumarin maayo degmada waxaan saleeyahay taakula maanta ha u biqinina mar haday xaqii haweenka iyo hooyooyinka naga bartay naga baadka عمر جعفر أبو قبطي وأنا سود وين وأنا هايد دقولة إمر دلك كنتي تجمد ألفين لكن وعن ربنا إن يسيب الله رسول قدومية كيسة يمر كشغين يا أسيب الله رسان ودقمد الحب إلى ذي وحب إلى ذي وحملنا تانا وسود وين gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud Warsame maayir ku-xigeenka degmadaasi Maxamed Jaamac Liibaan Hindi waxaanu ka maamul ahaan runtii farxad noo ah oo aanan marnaba ilaawi karayn oo aan ku celcelinaynaa oo aanan lahayn hadeeray idin ballan qaadan inay la shaqeeyaan waxaanu aaminsanahay oo aanu qabnaa inaad tihiin waxa halka soo gaarsiiyay in golo deegaan ama maamul ama degmadu horumar gaadho ama lama jeerto leeyado way si wacan bay u shaqeynaysaa idinka iska haweenow marka laga yimaado runaantii mashruucan waa mashruuc ballaaran waana mashruuc laga yaabo in ragga aysan qadhooda ku yartaan hore ula socon haddaynu ku baraarugno wixii dambe la soconno bay u baahan tahay waa mashruuc runaantii anfac weyn leh dadkan isku duubana unitka waxyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa oo horumarka ku saabsan ragaha waxa la doonayaa rag ahaan inaynu kala shaqeyno golaha deegaanka haday noqoto haday gobolka noqoto haday wasaaradaha noqoto dhammaan inaynu kala shaqeyno hay'adaha ka shaqeynaya mashruuca kan aad iyo aad noogu faraxsanahay reer Ceelafeen soo dhaweyntaadii muujiseena aad baan idinka mahad celinayaa guud ahaan gaar ahaan haweenka waa maxamed suute telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelafeen